training keenan caawa waxa la yiraahdaa magaciisa basic tasks in our business yani waa shaqooyinka ugu horeeya ee laga doonayo qofka inuu qabto businesskan marka uu bilaabo waa maxay shaqada ugu horeysa your first task ugu horeeya ee ay tahay inaad qabato maxay tahay waxa ugu horeeya ee qofka laga doonayo inuu ogaado waxa weeyaan why I joined forever يعني dream inaad dream ma garanaysaa aad dreamkaaga aad sawirato aad ogaato meesha aad u socoto inta ay u baahan tahay waqti dadaalka laga rabo inaad bixiso yani inaad dream inaad lahaato ayaa oo dream ahaan aad ku soo gashaa yamiin marka laba qodob ayaa muhiim ah qofka marka talaabada ugu horeysa uu qaaday inuu ka dhigo labada qodob waxa weeye qodobka koobaad inuu qoraal ku muujiyo meesha uu doonayo forever inuu ka gaadho yani sawir ahaan aad ku muujiso adigoo manager laba bilood kadib adigoo ma garanaysaa sanadka dambe dalxiiskii ka qayb qaadanaya adigoo 2 sano ka bacdi ma garanaysaa waxa weeyaan isbedel nololeed taabanaya ka gaadhay dhaqaale ahaan caafimaad ahaan si walba uga faa'iideystay yani wixii inaad dream ahaan ma garanaysaa aad sawir ahaan aad u dhigato ayaa muhiim ah right your dreams that you like to achieve as FLB yani qor taska ugu horeeya waxa weeyaan inaad qorto dreams aad doonayso 5 sano ka bacdi waxaan doonayaa inaan halka gaadho 2 bilood kadib waxaan gaadhayaa supervisor inaan noqdo ma garanaysaa 3 bilood gudaheed baan rabaa inaan ku noqdo darajada managerka inaan qorata la doonayaa ma garanaysaa waxaan doonayaa 2 bilood ama 3 bilood kadib dhaqaalahayga forever inuu gaadho halkaasi waa dreamkaagi moogta ka dreamku macnihiisu waxa weeye waa goal aad doonayso inaad gaadho laakiin aanad gaadhin ee aad sawiranayso inaad already gaadhiba maasha allah marka waxa weeye taska ugu horeeya laga doonayo shaqada ugu horeysa ee qofka FBO-ga markuu shirkaddan iska diiwaangeliyo laga doonayo waa in dreamkiisii uu sawirto oo uu qorto oo uu gool ka dhigto oo maasha allah meel kasta uu joogo ay tahay mid la nool oo la joogta sariirtaada agteeda kuu saaran dream board intaad ka dhigato oo board ahaan aad u sawirato ma garanaysaa dhinac walba aad ka dhigato yani waxa weeyaan sariirtaada dhigato mar kasta aad akhrido wax kuwa muuqda ay noqoto oo daalacato ayaa muhiim ah qodobka labaad laga doonayo waxa weeye write the reasons you join forever company shirkaddan markii aad soo galaysay ma maxay ahayd sababtii kugu dhalisay inaad soo gasho shirkaddani ma saaxiibkaabaa soo galay oo adna waad soo gashay uun ma waxa weeyaan ma garanaysaa dad shirkaddii soo galaya unbaad aragto adna waad iska soo raacday mise waxaa jirta sabab muhiima oo businesskan aad ugu soo biirtay baa jirta haddii ay jirto sabab muhiima oo aad ugu soo biirtay ganacsigani qor sababtii waxaan ugu soo biiray ma garanaysaa sababtaas dadka badankiisu waxay ugu soo biiraan inay dhaqaale yaro dheeriya ka helaan dadka qaarkii waxay ugu soo biiraan inay ma garanaysaa waxa weeyaan dad cusub oo kale ay bartaan dadka qaarkii waxay ugu soo biiraan inay life style-kooda ku bedelaan oo qaabka ay u nool yihiin ku bedelaan dadka qaarkii waxay ugu soo biiraan productiga marka maxay ahayd sababta adiga aad ugu soo biirtay sababta forever aad ugu soo biirtay ood garataa waxay kaa caawinaysaa rumaynta reasonkii aad ugu soo biirtay yani sababtii aad ugu soo biirtay haddii aad garanayso inaad rumaysaana way kuu fudaanaysaa way already mar kasta maskaxdaada waxa ku jira sababtii challenge-ga iyo caqabaadka iyo wax walba ka horeeya reasonkii aad ugu soo biirtay inaad rumaysana waxa had iyo jeer dulqaadkeega iyo kartideeda ku siinaya waa inaad garanayso reasonkii mar kasta oo xanuun yar iyo challenge shaqo la qabanaya mar kastaba like any other business kasta oo qofku qabanayo waxa uu doonaya dadaal iyo shaqo iyo yani challenge-giisu wata soo ma marka challenge-gaas oo dhan reasonkii haddaad garanayso waad u dulqaadan kartaa laakiin haddaanad bilaa reason aad kusoo gashay qodax yar marka ku muddaba waad carari oo lagu soo qaban maayo marka wax muhiim ah inaad qorto reasonskaad ugu soo biirtay forever waa qodobaadka ugu muhiimsan
ee lagaa doonayo markaa shirkaddan aad soo gasho inaad ma garanaysaa meel ku dhigato markaa dream board aynu samaysano maasha allah waxyaabaha aynu gaari karno oo dhan aynu sawirano sidoo kale markaynu waxyaabaha aynu gaari karno waqtiga ay nagu qaadan karaanna aynu sawir ahaan ku muujino insha allah taskiyada kale laynaga rabo walaalayaal inaynu barano waxa ka mid ah shirkaddan lacag gooni isticmaasha ka lacagta maxaa loo yaqaanaa lacagta waxaa la yidhahdaa cc maxay macno leedahay cc dani waa maxay sababta ma garanaysaaye cc faham inaad cc-ga macnaha laga wado inaad fahanto waa laga maarmaan iyadana cc-gu waxa weeye wax kala maahine waa internal currency wey waa lacagta ay shirkaddan isticmaasho wey markaynu alaab iibsano kuma iibsano dollar ahaan iyo ma xisaabsano iyo boon ahaan iyo lacago kale ma isticmaal ma xisaabsano laakiin waxaynu xisaabsanaa cc baynu xisaabsanaa maadaama ay shirkaddu tahay shirkad ballaadhan oo wadano fara badan ka shaqeysa dadka ka shaqeynayaana ay yihiin dad aad iyo aad u badan waxay samaysay halbeeg loo yaqaano cc cc-guna wax kale ma case credit baa la dhahdaa marka waa dhibco yar wey product kasta oo shirkadda ka mid ah waxa uu leeyahay cc gooniya marka cc-gani waa inaad taqaano faa'iidada uu kuu leeyahay inaad taqaano waa laga maarmaan haddii cc waa maxay lagu dhahdo waa inaad ma garanaysaa aad fahmi karto waa lacag inaad tiraa wey cc waa lacag ay shirkaddu isticmaasho okay tusaale ahaan deodorantiga oo kale ama toothgelka oo kale haddaan soo qaadno dee maraykanka qiimuhu ka joogaa sidoo kale faransiiska qiimo ayuu ka joogaa sidoo kale uk qiimo ayuu ka joogaa hargeysa iyo kenyana qiimo ayuu ka joogaa laakiin cc-giisu waa maxay had iyo jeer cc-giisu waa isku wada mid dr cabdiraxmaan okay walaalaha aan codka maqlayn ha furtan sidoo kale walaalayaal shaqooyinka ugu horeeya ee shirkaddan markaad soo gasho lagaa doonayo waxaa ka mid a kow sidoo kale inaad taqaano sida loo sameeyo 4cc-ga iyo muhiimadda ay leedahay waa maxay 4cc afar maxaa loo yidhi cc cc waynu garanaynaa laakiin afartan maxaa loo raaciyey afartan cc halkee bay ka kala imanayaan sidee baa loo sameeyaa waa inaad taqaano waa maxay muhiimadda maxaa cawaaqib xumo ah ama consequence ay ka dhalan karaa haddaanad 4cc-gaaga aanad samayn iyadana waa inaad garanayso walaalayaal ma garanaysaay walaalahan maqlayn miyuudka walaalahan maqlayn codkaan ugu furnayn codka furta insha allah marka 4cc waa halbeeg ay iyadu shirkaddu isticmaasho waxaana loo yaqaanaa halbeega guusha ee shirkaddana la yidhaahdaa maxaa loogu magac daray halbeega guusha ee shirkaddani waxaa la ogaaday 4cc-gan qofku hadduu bil walba sameeyo waxa uu muujinayaa qofka inuu active yahay waxay muujinaysaa qofkan inuu shaqadii ku dhex jiro oonu shaqadii bannaanka ka ahayn because hadduuna qofku 4cc-ga samayn dee ma garanaysaa waa qof aan active ahayn oo shirkadii ku dhex jiray mooye ma garanaysaa marka 4cc waa waxay nagu dhex ilaalinaya shirkadii inaanu ku dhex jirno ma garanaysaa oo ganacsigeennii aynu ka dhigno mid albaabkiisu had iyo jeer furan yahay maasha allah because bishan haddaad 4cc-gaaga aad samaysay at least hal cc baad iibisay oo alaaba soo ma adna dadna waad qortay marka businesskii waad ku dhex jirtaa laakiin haddaanad samayn 4cc bishani macnaheedu waxa weeyaan qofkaasi kuma dhex jiro ganacsigii weeyaan ganacsigii kuma dhex jire waa inuu ku soo noqdo oo uu kusoo dhex galo oo ma garanaysaa shaqadiisii uu qabsado wey see loo sameeya marka afarta cc waxaa lagaa rabaa bishii inaad adigu ugu yaraan aad alaab ahaan u iibiso alaabtaad adigu isticmaalaysa family ahaan bishani hadday noqoto shaambooyada toothgelka hadday noqoto dee kiriimaadka wixii aad isticmaalayso qaybaha caafimaadka wixii adigu aad ka isticmaalayso ee family ahaan aad u isticmaalaysaan oo lagu daray alaabta lagaa sii iibsaday ee macaamiishaadu kaa sii iibsaday intaas imise cc way noqon kartaa adigu alaabtaad isticmaashay iyo alaabta ma garanaysa aad sii iibisay bishani intee in leeg bay noqon kartaa waxaa lagaa doonayaa intaa doontaa noqotee ugu yaraan inay noqoto hal cc okay halkaa waxaa lagaa doonaya ugu yaraan maxaa hadhay markaa afartii cc lagaa doonayay afartii cc waxaa hadhay markaa 3 baa hadhay 3dani ama mar kale ID-gaaga alaabtii ku iibsano adiga dalban ama si qof baad qori qof hadaad qorto uu 2 cc iibsado maxaa hadhay hal baa hadhay soo ma halna adiga qasab kugu ahaa labana qof baa iibsaday 3 cc halka ku haysataa hal baa hadhay soo ma halka hadhay ama qof baad qori ama ID-gaaga ka iibsan marka 4cc-gii sidaas uu kugu buuxaa
marka waa inaad barato shaqooyinka ugu horeeya lagaa doonayo shirkaddan markaad soo gasho waxaa ka mid ah inaad garanayso 4cc qiimaha ay ku leedahay iyo waxa weeyaan ma garanaysaa faa'iidada kuugu jirto 4cc gana samayso traininno duwan baa jiro inuu ka samaynay oo youtube-keena channel-keena aad ka heli kartaan insha allahu tacaala iyagana waad dib baad u raacin doontaan laakiin 4cc manager qofku ma noqon karo hadduunu bilaha soo socday loo tirinayo aanu 4cc ga samayn haddaba manager haddaad doonayso marka ugu horeysa shaqada ugu horeysa lagaa doonaya bil kasta waxa weeye inaad 4cc ga samayso aniga cusmaan ahaan iyo adiga maadaama aan isku mid nahay dhammaantiinba bishu markay noo bilaabanto laba hadaf baynu leenahay labada hadaf baynu leenahay waxa weeye hadafka koobaad inaad bishani muujiso inaad shaqaynayso shirkadii aad ku dhex jirto ood banaanka ka hayn siad ku muujinaysaa 4cc inaad samayso sidoo kale waxa aad hadafkeena labaad yahay bisha qorshaha bisha markaynu soo galno waxa ugu horeeya inuu ka fikiranayo waxa weeye inaad goolkaagii kale bisha aad dejisato marka goolku bisha aynu qabsanaa waxa weeye bisha waa inaan alaab intaa leeg iibiyo bisha waa inaan derajada noocaas noqdo supervisor waa inaan noqdo assistant manager waa inaan noqdo derajo qaaliya waa inaan galo ayuu qorshaheenu yahay sidoo kale waa inaan muujiyay inaan active ahay qof muujin kari waayey inuu active yahay oo uu shirkadii ka dhex shaqaynayo oo uu alaabtii dalbado oo alaabtii isticmaalo oo wixii ugu yaraaye laga doonayay shirkadu samayn kari lah ma u malaynaysa derajo inuu bedeli karo goolkii kale bisha uu rumayn karo ma rumayn karti goolka bisha haddaanad rumayn waxa ugu yar ee ay ku tiri shirkadu rumee oo samee ay ku tiri maasha allah marka 4cc oo wax aad iyo aad u muhiim ah haddii adiga iyo tiimkaaguba aad samaysaanna runtii derajooyin aad adag baad gaari kartaa supervisorka oo kale haddii aad 4 qof haysato 4tiina qof bishan aad samaysaan min 4cc maxay noqonaysaa 4 ku dhufo markaa 4 qof maasha allah oo cc badan haddii 5 qof kugu hoos qorayna 5 qof mid waliba 4cc sameeyo maxay noqonaysaa 5 ku dhufo 4 waa imisa waa 20cc wey maasha allah waa cc aad u badan wey soma marka waxa wey 20cc bishan hadaad samaysaan bisha dambe already maxaa tahay 5 haddii 4 lagu dhufo 20 almost waxa tahay ma garanaysaa 5 qof hadaad keento supervisorkii baa afka kula jirtaba madaxa saaran tahay 4tii qof ee diiwaangelisay mid waliba hadduu haddana ma garanaysaa team crc sameeyo isaga teamkaa yare uu sameeyey ay 4cc sameeyaan adiguna kor baad usii kacaysaa maasha allah soo garamaysan marka waxaa la yidhahdaa 4cc gu waa habka ugu degdega badan leh ee uu qofku maxay uu derajooyinka ku bedelo weeye qodobka kale walaalayaal muhiimka ee isna la rabo inaad ogaato waxa weeye learn and teach bara adigu marka hore siina bar maxaa laga wadaa baro marka hore adigu baro waxa weeye adigu bar sida 4cc ga loo sameeyo adigu baro ma garanaysaa adigu baro sida ma garanaysaa waxa weeyaan leefalada iyo wax walba loo bedelo adigu baro marka hore qiimaha ay kugu leedahay forever inaad soo gasho kabacdi markaad waxaasoo dhan aad barato waxa kuu fududaanaysa inaad dadkii kale iyagana sii barto soo maha maasha allah 4cc ga muhiimadda ay ku leedahay baad baratay waxaad ogaatay inaad managerkii ay kaa xigto 4cc aad samayso waxaad ogaatay dalxiiskii inay kaa xigto 4cc aad samayso maxaa laga rabaa transfer the informationkaad heshay iyo macluumaadka heshay inaad sii gudbiso maasha allah oo aad u sii gudbiso adigu samee marka labaad markaad samayso adigu una sii gudbi walaalaha kale waxaa la idhahdaa learn do and teach baa la idhahdaa oo macnaheedu tahay marka hore bara adigu haddana samee ku camal fal inaad barato keliya macluumaad samaynayso haye kabacdi maxaa laga rabaa qabo oo dee yacni sii barta tiimkii kale inaad sii barto sii coach garee qodobka afraad walaalayaal ee la rabo basic taskiga ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee la rabo inaynu barano waxa weeye businesska iyo productiga inaad ma garanaysaa habka loo soo bandhigo aad barataan sida loo soo bandhigo ganacsiga qof markaad fursaddan usoo bandhigaysa habkee aad ugu soo bandhigi kartaa qaabka ugu fududee qofka aad ku qancin karto eed ugu soo bandhigi karto tusaale ahaan aniga cusmaan ahaan baad rabtaa inaad ii soo bandhigto familigaagaan ka mid ahay waad i taqaanaa waxaad i ogtahay inaan shaqadani aan qaban karo oon ka faa'iidaysan karo sidee baad igu soo bandhigi lahayd ma garanaysaa qaabka loogu soo bandhigi karo qof waa inaad garanayso nidaam lamara baa jira marka ugu horeysa name list buu qofka laga doonaya inuu diyaarsado liiska magacyada waxaa la yidhaahdaa magaciisa who do I know baa la yidhahdaa yaan garanayaa haye yaad garanaysaa adigu haddaba yaad garanaysaa asxaabtaadii hore wada shaqayn jirteen familigaaga dadka aad ku hareeraysan tahay idada adeerka inaabtiga macooyo yacni jaarka waxyaabo badan dadkaa ku hareeraysan tahay saamayntaad ku leedahay oo dhan
priority-ga kuwa ah oo dhan waa inaad list u samayso. Listkaas ma garanaysaa waxa weeyaan category baad u samaynaysaa. Category-ga A waxa weeyaan waa dadka aad saamaynta xoogan ku leedahay boqolkiiba boqol aad aaminsan tahay businesska inay ka faa'iidaysan karaan because waa dad aad soo xulatay weeyaan. Select weeyaan waa dad aad soo xulatay wey. Dadkaad soo xulatay priority-ga kuwa ah group A baynu leenahay. Group B ayaa jira sidoo kale walaalayaal. Group B waxa weeyaan waa dadka saameyntooda aad ku leedahay yara durugsan tahay inaad aaminsanay iyo aad isleedahay waa laga yaabaa inuu soo galo businesskan laakiin saameyn xoog leh qofka kuma lihiyo aad malaha kuma aaminsana. Qofka noocaas oo dhan aad leedahay telefonkaaga kugu jira asxaabtaadii hore ah aad garanayso ma garanaysaa waxa weeyaan isagana list gooni aad ku samaynaysaa. Dadka aad leedahay ma garanka dadka aad leedahay inay ku soo biiraan businesskani waa ma garanaysaa rajadoodu waa boqolkiiba aad bay u hooseysaa aad leedahay dadkaas iyaga waa group maxay waa group C way marka iyaga rajo badan kama qabtid. Group D baa jira ama category D baa jira qayb dad cusub baa jira oo Facebook iyo social media iyo meelahaas oo dhan ka soo raaci doona. Dadka iyagana ma garanaysaa sidee baa loogu bandhigaa. Dadka waxa muhiim ah marka hore inaad adigu iska qanciso adiga uu ku aamino qofkani uu kula qabsada adiga oo waxa weeyaan ma garanaysaa uu aamino xiriir marka hore aad la yeelato qofkan xiriir la yeelo kabaad xiriir markaad la yeelato liiskii ku soo darso ama wuxuu geli biida ama eedu geli ama kuwaad saamaynta xooga ku leedahay buu noqon maasha Allah buu noqon ama wuxuu noqon kuwaad saamaynteere kooban aad ku leedahay ama wuxuu noqon kuwaanad saamaynba ku lahayn aad leedahay qofkan ma garanaysaa waa dee rajadiisu aad bay u kooban tahay ayuu noqon saddexdaa mid ka mid ayuu soo geli ma garanaysaan intaa markaad liiskii samaysato tallaabada ku xigta waxa weeye the way of invitation the art of invitation sidee dadka loo soo marti qaadaa maasha Allah qofkii liiskii buu kugu jiraa 100 qof baa ku liis garaysan sidee baad shirkadda ugu sheegi halka dadku ay ku fail garoobaan waa meelaha weeyaan ma garanaysaa markaad marti qaadaso maxaad ku marti qaadayso qofka imka dad maanta gurigaaga igu marti qaadaso guriga nagu kaalay baad oran soo ma arrin noocaas jirta maasha Allah arrin baan leeyahay xaflad maasha Allah kaalay baad leedahay guriga soo garmaysid xafladda iyo tafaasiisheeda iyo wax walba hadhow toole ayuu qofku ogaan doonaa meesha dhexdeedu ku ogaan doonaa waxa la samaynayo waxa la qabanayo wax walba martiqaad kaliya ay fidisan laakiin more information ma aha marka ugu horeysa qofka aad marti qaadayso waxa ugu wanaagsan in laga marti qaado waa xagga telefonka qofka waxaad ku soo marti qaadaysaa warbixinta markaad qofka ku soo marti qaadayso ma garanaysaa warbixinteeni halkay ka dhacaysaa isweydiin warbixintii ama waxa weeyaan adiga la ballami qofkii oo meel baad kula ballami meeshaas waa inay meel aad adigu si diyaar garowday maasha Allah diyaar garow xoogan aad samaysay oo physically adiga ahaan aad isdiyaarisay shakhsiyan aad isdiyaarisay because adiga laftigaagu kugu qancaya qofkani adiga la kulanka qofka aad la kulmayso ayaa waxay tahay qayb ka mid ah warbixintii aad bixinayso waa qayb ka mid ah warbixintii marka maxaa laga doonayaa waxa laga doonayaa marka hore physical ahaan qaabka aad u eg tahay inuu yahay qaabtay ma garanaysaa qofkan ay qancin kara ayaa la doonayaa number 2 meesha qofkan aad warbixinta ku siinaysaa inay tahay meel munaasiba ayaa la doonayaa markaad aad siinayso waxa weeyaan meel degan jawi degan qofkan ma garanaysaa uu ku fikiri karo waxna uu ku fahansiin karo ayaa la doonayaa inay noqoto okay taas waa markaad adigu individualkay 1 to 1 weeyaan warbixinta hal weji ka weji loo siinay weeyaan waxa jira warbixino publica sidee dadka loogu soo casuumaa warbixinada publica salahan suun baynu sameynaa intaasoo qof maanta ku liis garaysan 100 qof baa ku liis garaysan 100 kan qof ee ku liis garaysan waa inaad soo marti qaado oo qaab wanaagsan aad u soo marti qaado 5 qof ee u horeeya ayaad maanta casuumi haddana maalinta ku xigta 5 qof baad soo casuumi haddana 5 qof baad soo casuumi waad wici waxaad dhahaysaa assalaamu calaykum waa wareysanaysaa qofkii maasha Allah tabarakallah xaaladda markaas ka wareysataan waxa waa inuu dareemo qofku xamaasad aad u weyn iyo farxad aad u weyn waa inuu ka dareemo marka telefonka aad kala hadlayso maasha Allah tabarakallah adigoo aad iyo aad fursadaad aad iyo aad adigu ugu qanacsan tahay qofku waa inaad u soo bandhigi karto waxaad u sheegaysaa marka inaad ma garanaysaa shirkad weyn oo caalami oo international aad ka mid noqotay isla markaana waxa weeyaan aad isagana maanta aad fursad u hayso fursad uu ma garanaysaa wax badan uu noloshiisa iskaga xallin karo oo ka faa'iideysan karo ganacsi dhaban oo ka aas-aasi karo
inaad maanta u hayso ayaad qofkii u sheegaysaa maasha allah intaa marka aad u sheegto qofkii wuxuu ku odhanayaa qofkan fursad baan ku hayaa marka koowaad ku tiraadee telefoon aad ka wacdo markaaba wuxuu jecel yahay Soomaaliyeedna warkiiba inaad dhac u siiso doonayaan warkii haddaad dhac uga siiso way kaa khalkhalaysaa warbixintiina way kaa jilicsanaanaysaa waxa weeyaan ma garanaysaa qaradaadka ay dadku sameeyaanna waa warbixintii iyo invitationkii iyo hal mar ay wada bixiyaan wey lama baahna inaad hal mar wada bixiso kaliya warbixin baad bixinaysaa waxaad bixinaysaa invitationkana warbixintii qofku muxuu soo dooniba already dad badan ba habeenkii Zoomkii dadkii ma soo galayaan wadada warbixintii already sii haya xiisaba ma jiraan ma garanaysaa qofkan waa inaad xiisa badan oo ilaa xad ah falo maanta halkee lagu wada isagoo leh waa inuu soo galo qofkii oo hogaano kale lagu wado oo kale waa inuu soo galo aad Zoomkii u soo dejiso ma garanaysaa waxa weeyaan markuu ku raado qofkii warbixintaysii maxaad ugu jawaabaysaa waxaad u sheegaysaa in warbixintu ay tahay warbixin ballaaran aad wada joogtaan la soo degbaad leedahay Zoomka ma garanaysaa saacadda iyo saacaddaasay bilaabmaysaa warbixintu laakiin anigu waxa aan ku soo wici doonaa 8 markay bilaabmaysaa 8 gow ah ayaan ku soo wacayaa maanta 5 qof ee ku wada casuuna dhammaantood 8 inaad wacaysaa iyo wada ku garanaysaa saacadaad ku buuxsanaysaa 8 saacad markaad ku buuxsato dhag hebel wacaysaa haye way gaadhaad leedahay warbixintii isagoo diyaarsan oo Zoomkii la soo degay ayuu soo galayaa markaa qolkii qofka markuu soo galo maasha allah warbixin saameyn leh uu qaadanaya qofkii maasha allah warbixintii markuu qaato maxaa xiga dee waxa weeyaan ma garanaysaa dad guuleysanayo arkaya maasha allah dad badan oo isbedelo arkaya hadduu qurbaha joogo waxa laga yaabaa inuu dad badan oo familigiisa iyo wadankii jooga uu yiraahdo niyow dadkii ma garanaysaa waxa weeyaan waa kuwii dee ku soo wacayay telefonkii bal ku soo wacayay maanta u heshay chance inuu dhaahba laga yaabaayo uu dadkii halkii camal u sameysanaado xaafadii iyo dadkii ka shaqeystaan halkan adiguna aad nasiti inuu raado oo ka ugu yar baa saa u fikiri kara ka kalena waxa weeye naftiisuba ka bilaabi kara barodhagi uu bilaabi kara oo wixii oo dhan ka faa'iideysan kara marka waxa weeyaan walaalayaal habka markaad qofka u soo marti qaado qofkii xamaasadaysan baa meesha ka soo baxaya isagoo ku caroonaya ka soo bixi doona isagoo oo taaganba maxaad mar hore fursadan aad ka faa'iideysatay ugu sheegi weyday ayaa soo bixi doona marka qaabkaas loo soo marti qaadaa ka bacdi waa follow upkii waa la diiwaan gelin leaderka ka sareeya ayaad la kaashan waad soo wada khadkaad soo wada gelin doontaan hawshiisa iyo programkiisa ayaa loo dhameystiray labadiisii horeeyay ganacsigiisa ku bilaabi lahaa baa loo sharaxay maasha allah ka bacdi wuxuu noqonayaa qof maasha allah hore u socday ayuu noqonayaa marka walaalayaal taas waa qaabka alaabta loo ganacsiga loo soo bandhigi weey waa inaad barataan waa shaqooyinka ugu horeeya qofaan garanayn qaab loo soo casuumo qof kale muxuu samayn karaa qofaan garanayn qaab follow up ama dabagalka loogu sameeyo qofkii warbixinta qaatay يعني واش قوي كوجو ري لقى دنيا قبطه وين قابك الليسك الله سميست مقعيدها دانت جرانين وين براتو because واش قوي كوجو ري لقى دنيا ناس سميسو حدانت هرو سميس الله ليسكي مقعيدها حتى سميه because وهالك كدقاق يسويان dad badan baa soo bixi hadda maskaxda ku jirin maanta waxa ku jira trainingkeeni wax la yiraahdo memory jogger waxa weey wuxuu xasuusinayaa dhammaan dadkii looday oo dhan xataa grade 12 kaagii baad xasuusanaysaa dadkii isku ardayda ahaydeen baad xasuusanaysaa dadkii soo wada ciyaari jirteen dhalinyaradnimada xasuusanaysaa dadkii shaqada aad wada dhowr sano kor wada shaqeyn jirteen baad ayaa la rabaa inaad xasuusato soo garamisid dhammaan liis gare dhammaantood waa potential weeyaan qofna ha yareysan because qof maanta aad yareysanayso oo isleedahay kan kuma haboono ayaa waxa laga yaabaa inuu yahay managerka kugu xiga way dhacdaa mar walba Soma maalin walba way dhacdaa aniga laftigayga ku dhacday dadaan islaha runtii aan aad u yareysanayay ayaa maanta senior manager isa senior baa kamid ah garanaysan gabadhii ugu horeysay gaariga ku guuleysatay waxaan ka qoray history dheer baan ka qoray oo sidii aan ma garanaysaa u arkay markay ganacsigan aad u bilowday ee dream board bay samaysatay maasha Allah dream board bay samaysatay ani dream board ka iska khiyaali baan moodayay laakiin way ka dhabaysay maasha Allah way ka dhabaysay 5 bilood gudaheed waan manager ku gaaray bay tiri oo bisha aan manager noqdo koobaad damaadkeygii bay waliba ii soo dirtay 4 bilood gudaheed bay ku noqotay managerkii maasha Allah waxa weeyaan maantana waa senior manager wana gabadha ugu horeysay ee Soomaalideena noqota ee gaariga koobaad hesho weey marka waxa weeyii walaalayaal waa inaad garanayso waxa soo dhan waa taskigii weey waa shaqooyinkii kugu horeeyay ee laga dunan qabato ta kale waxa weeyaan barodagan oo iibisa wax badan buu ka caawinaya alaabtan inaad isticmaashana waa muhiim because alaabta marka soo isticmaasho waxa kuu fudaanaya alaabta inaad iibiso alaab badan iibiso shayga maanta aad isticmaashay wuxuu kuu keenayaa macaamiil badan because result fiican ayaad alaabtii ka heli doontaa markastoo result wanaagsan wixii aad ka heshana
maasha allah dadkii kale inaad u sharaxdo ayaa aad iyo aad walaalayaal u fududaanaysa marka taana waa inaad barataan qodobka kale walaalayaal ee layniga doonayo waxa weeyaan alaabta qaabka loo soo bandhigo team haddaad wada joogtaan oo adiga teamkaaga wada joogtaan meel baad alaabta kusoo bandhigi kartaan maasha allah haddaad doonto gurigaagaad ku bandhigi kartaan hadda halkan waxaad arkaysaan dad badan oo gurigooga alaabtii kusoo bandhigaya asxaabtaada familigaaga dadkaa dhan baad casumi kartaan maasha allah bandhig xaafaddu familiga ayaad samayn kartaan oo aad bulsho badan aynu ku kasban karno walaalayaal maasha allah waaya dariiqa kale walaalayaal waxyaabaha qodobka shanaad ee layniga doonayo waxa weeyaan inaad barataan sidaad manager ku noqon lahaydeen ma garanaysa sidaad manager ku noqon lahayd maxay tahay sababtaad businesskan ugu soo biirtay inaad meel fiican ka gaadho soo ma inaad heer sare ka gaadho weliba lama doono inaad heer sare aan raba inaad ka gaadhay heer sare uun macno ma lihine waa inay jirto meel mucayina oo tirada anu talabatayda maaha ya do ama die inaad tirado waa dhimo ama qabo inaad tirado ilaa aan halkaa gaadho maaha talabatayda maaha inaad tirada la doonaya insha allah ilaahay insha allah kama tegayna mar walba soo garamays wad baa ka horeeya laakiin adiga go'aan inaad leedaho commitment halkii ugu dambeysay ka goonaasho dhammaystiran inaad samaysan la doonaya maaha inuu xiisuhu muddo yaro kooban buu jiraa laakiin ka goonaasho qofku markuu leeyahay muddo dheer buu waaraa waxaa la doonayaa inaad samayso ka goonaasho dhammaystiran waan ogahay walaaleel qurbaynu joognaa mashquulkiisaa badan hawlihiisaa badan waqtigu waa iska cidhiidhi laakiin ogaada businesskan haddaad waqti badan gelisaan waxaad ka helaysaan wax ka badan waxaad qurbaha ka sugaysaan ya maasha allah aniga haddii aan in yar iskaga kin warrabo waxaan ahay walaalkiin qurbaydii la joogaan ahay wax badan inagamaan horreyn sanad iyo 9 bilood baan ganacsigani ku jiraa waxa weeyaan ma garanaysaa bisheedii baan manager noqday maasha allah tabaaraka allah dhaqaalahayga halkan ku qaadan jiray waxa uu ahaa 1200 euro wax saas ah ayuu ahaa dhaqaale aad u yar oo minimum salary minimum la yiraahdo ayuu ahaa runtii maadaama ma garanaysaa aduu 2 sano hadda ugu dambeeyay mishaarkaygu isma bedelin intaas oo ahaa xaqiiqatan alxamdulillah maanta businesskaygani wuxuu ka shaqeynaya intaasoo wadan waxaan gaadhay heer aan share ku yeesho waxaan gaadhay heer aan noqdo ma garanaysaa qofkii labaad marka laga yimaado familigeena caashii mustafa yani 2.5k 2500 cc ay sanad gudihii oo weliba ma garanaysaa sanadkii koobaad global rallyga oo aad ogaan doontaan faa'iidooyinkii iyo wixii xagga dambe aynu ku ogaan doono ma garanaysaa kaga qayb galay yani waxa weeyaan walaalayaal markaan isbarbar dhigo hal bil oo ka mid ah dhaqaalaha ay soo galay waxa laga yaabaa 8 ilaa 9 bilood oo ama ilaa 10 bilood baan dhihi karaa oo dhaqaalahayga shaqadayda soo gali jiray ma garanaysaa inay ka badan tahay 10 bilood oo aan ma garanaysaa waxa weeyaan chief iyo joog aan diiday oo 15 saacadood shaqeynayay waxa iga faa'iido badan bil kaliya oo aan halkan ka shaqeeyo waqtigayga iyo noloshaydii iyo anuu si xor u shaqeysanayo maanta haddaan doonin dhaqaalo badan aan shaqeeyo anuu baa dadaalka yar kordhinaya cid aan iyo cid aan u shaqeynaya ma jirto aniga naftayda boos u ah maasha allah tabaaraka allah waxa weeyaan wadankii baan kaga shaqeysanaya halkan anigoo jooga ganacsiga badankiisa wadankii buu ka shaqeeyaa you can do it waad samayn kartaan ya waad samayn kartaan waxa weeyaan ma garanaysaaye aroortii baad baxaysaa from 7 am ilaa iyo yani 9 ilaa 9 to 5 soma 9 subaxnimo ilaa iyo 5 ayaa la maqan yahay shaqayna ku maqannahay already waana wax cayimano mishaar weey oo bish markay sii dhamaanayso haddaad isweydiiso bishii hore mishaarkii hore muxuu ahaa isweydiiso maxaad ka sii haysaa taas tiraado wax mucayina oo sheegto koob iyo 2 sheegtayna weyda laga yaaba soo garamaysaan marka walaalayaal runtii businesskan waa business ballaaran waa inay jirto ma garanaysaa duruuf kasta oo jirta waa inaad sacrifice aad bixinayso wax kasta oo aad doonayso inaad ka sal gaadhana waa in sacrifice pricekiisa waa inaad bixisaan soo garamaysaan maanta shayga aad jeceshahay quruxda badan leh ee doonayso inaad ku xaragooto miyaad ku heli kartaa si yaro bilaash ma ku heli kartaa maya soo ma haddaba forever waa saas oo kale haddaad doonayso dhaqaale fiican oo noloshaada saameyn weyn ku yeesha haddaad doonayso waa inaad waqtigayga dadaalkayga commitmentigayga aad samayso marka hore desire baa lagaa doonaya marka hore inaad rabitaan waxaan la timaado rabitaankii waad samaysayna waa tan shirkadii aad ka mid noqonay dhammaanteen laakiin maxay noo xiga commitment baa la doonaya ka goonaasha la doonaya maasha allah haye haddaba darajooyinka ugu muhiimsan shirkadda laga gaadho ee la doonaya inaad barataan waxa weeye walaalayaal darajada manager runtii waa darajo si fudud ay dadku u noqon karaan hadday dadaalaan haddii ay ku adkaato haddii ay dadaali waayaanna ay ma garanaysaa ay ku adkaan karto hadda waxay nagula jiraa runtii leedaro managerskii ay wax yar uga dhiman yihiin
oo muddo kooban ma garanaysaa ganacsiga ku jiray ayaa caawada idinla jooga qaar waxay idinla joogaa ilaa 3 xabrood oo bishii hore ganacsiga bilaabay ayaa filaya one day iyo 2 day waxay ku lahaayeen ma garanayo saafi inay joogtaan malaynaya bishana assistant manager baa socotaa ma sha Allah bishana ay hadda noqotay hadda maalmahan supervisorkii localka ku buuxisay haddana isla bishan waxa weeyaan waxa u socotaa assistant manager naga smantan insha Allah waxa weeyaan managerkii waa banaanka hada laan weey hadii ilaahay na gaarsiiyo marka waxa weeyaan walaalayaal waa waxa yar 3 bilood gudaheed ku noqon karto manager qofku markuu noqdo muxuu qiimo muxuu yeelanayaa kow hadidii baa ku bilaamaya dalxiisadii baa ku bilaamaya jeegagii baa ku bilaamaya ma sha Allah nolosheedu way isbedelaysaa oo waxa 3 bilood ay qorsheynayso inay ku gaadho saafi ay doonayso inay ku gaadho waa inaad idinku aynu qorsheyno waa inaynu qorsheeyigi nidaamkiina walaalayaal la iman insha Allah ta'ala hadaba manager set ku noqonaysaa adigu si halkee jeclaan inaad gaadho waa kuwan darajooyinkii shirkadda qofku marka ugu horreysay uu isdiiwaan geliyo waxa loo yaqaanaa preferred customer waxa laga doonayaa 2 cc oo alaaba inuu iibsado si uu darajada koobaad ee shirkadda u galo darajada koobaad ee shirkadda markuu galana muxuu faa'iidayaa qofkani lambar 1 wuxuu faa'iidayaa alaabtiina uu jabto 35 ay noqoto 30 buu helayaa laakiin 5 ayaa loogu soo dari doonaa bonuskiisa 5% baa loogu soo dari doonaa wixii uu iibsaday haddii uu noqdo active uu noqdo 4cc ga sameeyo that's why 4cc gu muhiim tahay 4cc macnaheedu waxa weeye inaad hesho dhaqaale dheeri weeyaan walaalayaal ma sha Allah assistant supervisor waa meesha ugu muhiimsan ee aad maanta joogtaan walaalayaal ma sha Allah darajadan mar hadaad darajooyinka shirkadda mar hadaad gashaan lagama noqdo oo qofku dib uma dhaadhaco laakiin you need to move on waxaad u baahan tahay inaad move on tiraado because reason baad u soo beertay ayaad ugu soo beertay shirkaddan maxay sababta ugu soo beertay ma waxaad inaad 2 cc kaliya iibsato alaaba mise waxaa jirtay sabab weyn oo aad doonayso inaad ka gaadho haye safarkii markaa muu istaagay maya inaad sii dhaqaajiso la doonaya safarkii aad sii kaxayso supervisor aad timaado supervisor maxaad ku noqonaysaa 25 cc kaliya ku noqonaysaa oo de adiga teamkaaga wixii aad samaysaan adaa dadaali ogaada walaalayaal mid baan rabaa inaan sheego qofku marka uu 2 cc sameeyo tusaale ahaan saaxiibada baa kula hadashay forever ma sha Allah waa shirkad wanaagsan alaab wanaagsan haysa waa shirkad weyn wadankii xataa way ka shaqeysaa qorba xataa waad kaga shaqeysan kartaa bay ku tiri aad bay ku qancisay gabadha asxaabta tihiin oo masaas aha ma sha Allah imisa lagu bilaabaya 2 cc lagu bilaabay waa imisa qiimaheedu Mareykan markaad joogto oo $200 $300 meelaha package-ka hadii kalena $400 hay intaas miya ha inta waaban hayaay igama dheere ma sha Allah ilaahay bay fududiyay inaad saatiraaba laga yaabaa oo shirkadii aad bilowdo easy sayra fudud baa darajadii aad ku noqotay 2 cc inaad ku buuxisay faa'iidadii darajadana saasaad ku heshay go'aan kayra qaadatay kaliya ayaa waxa uu sababay inaad darajadii aad buuxiso laakiin supervisor seeba ku noqon kartaa ma in kaliya kaale supervisor 2 cc inta lagu buuxinayo lacagta inta laga bixi baa lagu noqonayaa maya laguma noqonayo supervisor dadaalkaaga lagu noqonaya haddaad aragto shirkaddan qof supervisor noqday waa qof dadaali weey qof iska fadhiya ma noqdo soo garamaysan marka haddaba haddaad maanta 2 cc buuxisay caawa isweydii supervisor sidee baan ku noqdaa buug iyo qalin qaado qorshe waa 25 cc adigu maxaad qaban kartaa teamkaagu maxay qaban karaan cc kastoo teamkaaga kaaga yimaada tirso xisaabta ku darso maanta haddaad 10 cc kugu jiraan qof hadduu iibsado teamkaaga 1 cc ka jar yani intii 25 intii ka dhineed ka jar 10 haddaad haysatay 12 ka dhig soo maaha ma sha Allah haddaba supervisor qofku markuu noqdo muxuu faa'iidayaa wuxuu faa'iidayaa alaabtii oo u jabto 38% lacagtii commission-kiyo kuu sii badata sidoo kale assistant manager ma sha Allah iyadana waa inaad barato dhaqaalihii baa kuu sii badanaya ilaa iyo $100 baa 43 alaabtii ka faa'iidi doonta $100 alaabadii iibsaba 43 adiga iska leh ma sha Allah $100 alaaba hata sii tafaariiqiso qiimaha tafaariiqda ku iibiso 43 adigu ku soo noqonaya shirkadina maxaa noqonaya 100 ka jar 43 57 uu noqonaya 100 soma ma sha Allah dhaqaale badan adiga shirkadii maxaa bas dhaantaan isku mid baad wax almost isku mid baatiin darajada kugu xigta waa manager markaad assistant manager ka noqoto 75 cc aad 2 bilood gudaheed ku buuxiso dhammaan darajooyinka ka soo bilow taa koobaad ee maalintii horisaad buuxinaysay ilaa darajada manager ka laga gaarayo inta u dhaxayso dhan waxa lagu buuxiyaa 2 bilood baa lagu buuxiyaa taa macnaheedu waxa weeye iibka bishan aad joogto hadda iyo bishii hore oo la isku daray wixii dadaalka adiga teamkaaga aad samayseen oo la isku daray ayaa ku gaadhay hadii tusaale ahaan imika waxaynu joognaa bishii December hadii 10 cc aad samayso waa inaad ma garanaysaa bishii horena soo gashay ganacsiga cc-dii bishii hore u geynaysaa
ee ma garanaysaay November ama 11aad u geenaysaa 11aad oo lagu daray 12aad waa inay 25 cc ku siiso hadday 25 cc ku siin waayaan maxaa dhacaya dee bil kala imanaysa meeshii Soomaa bil kala haday timaado tii hore maxay noqonaysaa bil saddexaad bay noqonaysaa marka xisaabtaas way ka tagtay bil kala meesheedii soo galaysa tana noqonaysa bishii hore noqonaysa marka January haday timaado December iyo January baa israacaya okay markasta labada bilood ee u dambeeyay unba tirsanaysa bisha joogtay bisha kale ma tirsanaysa iibkaad samaysay bisha iyo bisha kale waanaad ku xisaabtantaa marka haddii kale desiisiye badan aad samaysay bisha hore way kaa baxi karaan because bishii way tagtay way kaa tagaysaa kuma joogayso sida uu bisha u socoto way wareegaysaa bisha iminka November xagay goormay nagu dambeysay way tagtay Soomaa October goorma kugu dambeysay khayr iyo wanaag waxay lahayd bay la tagtay haddaad guuleysatay waad guuleysatay Soomaa marka saasoo kale u wareegayaan levelkaadna saas la doonayaan maaha wax iska yaalaya oo meeshan aad doonayso oo la odhanayo un ilaa iyo 2 sano ka bacdi baan CC-gayga ku isticmaali doonaa halka IC iyo bangi maaha la dhiganayo waa inaad shaqayso levelkan move waa inaad raado ood hore u socoto oo reward lagu siiyo masha Allah promotion manager haddaad noqoto 2 bilood gudi 2 habba managerka lagu noqdaa uu ka duwan yahay walaalayaal managerka 2 habba lagu noqdaa adiga iyo teamkaagu haddaad dadaashaan 2 bilood gudaheed bisha aad ku jirto salaan 12aad baan ku jirnaa bishan iyo bishii hore haddaad 120 cc keento manager baa tahay sidoo kale haddii ma taqaanaayay haddii walaalayaal aad ma garanaysaa waxa weeyaan 4 bilood u dambeeyay 4 bilood goormay noqonaysaa bishaad joogto uun bisaa ugu celi imise noqonaysaa 9aad baad kasoo bilaabay Soomaa 9aad kasoo bilow ilaa hadda bishan aad joogto 4 bilood isku xiga haddii aad noqoto 150 cc keentana manager baad noqon marka managerka saasa lagu noqdaa manager haddaad noqotana masha Allah adduunyadii oo dhan baa ku furmaysa masha Allah lifestyle-kaaga waa isbedelaya axmad dambood ka lahday iyo waxaas oo dhan waad iska diinaysaa hiidkaaga yar baa kuu shidnaanaya gurigaaga ku dhex shaqaynaysaa soo nice Soomaa masha Allah waxaad ka warwaraysaa ma jirto brodagaaga yar forefono iska isticmaalaysaa halkaasaad iskaga noolaanaysaa ciyaalkaaga iyo reerkaaga iskala ciyaaraysaa masha Allah gaarigaagii forefono iska hiri dalxiiskaagii baad iska hiri jeegaagii baad qaadan waxaas oo dhan maxay u baahan laakiin shaqo iyo dadaal start free miyaa lagu heli karaa waxaas oo dhan maya way qodobka 6aad haddii aan ku darsano waxa jira walaalayaal waxyaabo la yiraahdo work routine la yiraahdo trainingkan wuxuu ku saabsan yahay waa waxyaabaha routine-kayno ah weey waa waxyaabaha sida qofka foorifo kamid ah ama sida shirkadaheena nadweyga kamid ah ka ah sida uu cuntada ugu baahan yahay ma garanaysaa ayaa la doonayaa 5 salaadood waa tirisa waad tukataa Soomaa masha Allah wax joogtaad u samayso Soomaa masha Allah sidaas oo kale la doonayaa inaad joogto iyagana u samayso yani waa wax regular la doonayo had iyo jeer name list ka magacyadana samayso had iyo jeer inaad martiqaad joogtaa samayso inaad samayso bandhig had iyo jeer joogtaa inaad samayso inaad had iyo jeer samayso dabagal yani dadkii aad warbixinta siisay inaad dabagal ku samayso inaad ma garanaysaa how to help your prospect to become your customer qofkii cusbaaye maanta la soo kulantay inaad ka sidii aad uga caawin lahayd siduu ku noqon lahaa distributor because su'aalo badan buu ku weydiin doonaa samir badan baad laga doonayaa adkays badan baa laga doonayaa way kugu adkaan kartaa mararka qaarkood su'aalaan kugu habboonin baa lagu oran karaa wax kasta ka filo waa inaad shafka u garaacato waa inaad tiraado this is my life waa inaad tiraado this is my job waa inaad appreciate ku noqoto marka su'aal lagu weydiiyo masha Allah waa inaad helpful noqoto qof yani inuu caawiyo qofkii ugu diyaarsan waa inaad noqoto qodobka 6aad ee routine-keena waxa weeye inaad ku caawiso distributor-kaaga sidoo ku bilaabi lahaa seed u caawinaysaa inaad ma garanaysaa diiwaangelinta u samayso masha Allah tabarakallah follow-up markaad u samayso inaad account-kii ka caawiso inaad qaabka alaabta u dalban lahaad ka caawiso wixii oo dhan ayaa laga doonaya marka waxyaabahan waxa la yiraahdaa work routine number 1 waa maxay raadi liiskaaga magacyada raadi waayo 10 qof ee sooran lahayd businesska way ku habboon yihiin 10 qof markaad hesho qofkii maad u ciyo forifan ku hayaayo saabuun iyo dacarba nibinambad oran markaaba no qofkii markaad liis garaysato waxa la doonayaa inaad makarasa invitation u samayso invite him you are inviting him wad invite garaynaysaa qofkan laakiin ma siinaysa presentationka waqti gooni adigoo diyaarsan baad siin ma adigoo invitation xilliga invitationkii baad siin no qofkan inuu isaguna kuu diyaarsan yahay adiguna diyaarsantaa muhiima labadiinaba soo garamaysid haddaad la kulmayso waa gooni haddii aad online-ka kusoo casuumaysana waa gooni labadaba waa presentationka loo siinaya okay waxyaabahan oo dhani waxa weeyaan basic tasks weeyaan walaalayaal waxyaabaha aas-aasiga ah ee laga doonayo markaad shirkadan soo gasho inaad barato kabacdi
you know where to start hadaba waad garanaysaa meesha laga bilaabayo waxa laga rabaa commitment sad goalkaagu gaadho waxa laga doonayaa inaad daily activity qabad maalinla inaad leedahay tusaale ahaan berito bishu waa 13 bisha maxaa qorshe ku yaala waxaad doonaysaa 13ku inay noqoto un shalayba doonaysaa mise waxaad doonaysaa inay macno badan kugu samayso oo aniga berito leh ilaa waa inaan waxa qabto oo hadeennimada hadii wixii kuu qabsan waayo inaad canaanato miinahayn oo tiraado maxay ku qabsan waayeen oo inaad xisaabiyo ya soma masha Allah marka walaalayaal daily activity ama waxaad maanta qabanayso wuxuu soo saari doonaa natiijo wanaagsan oo isbuuci ku soo baxda ayuu soo saari doonaa isbuuca waxaad qabataana waxa uu ku soo saari doonaa natiijo wanaagsan oo bishii ku soo saar masha Allah bishana dad doonaysa supervisor oo shan la tagisiisa aad buuxiso oo soo waad soo bixiyo waxa weeyaan dadaalkeedii hadda samee waqti badan baad haysataa xagga gableyn maalmaha u dambaysa you have time now waqti baad haysataa hadda ka faa'iideyso haye bisha imisa supervisor doonaya masha Allah leaders supervisor imisa doonaya bil gacanta taaga how many of you ayaa supervisor bishan doonaya inay supervisor noqdaan shukri masha Allah engineer Saeed Dahir haye masha Allah umal khair haye supervisor masha Allah haye saddex qof kaliya ayaa bisha supervisor doonaya inteena kale assistant manager okay Safi kulley iyo Firdaus masha Allah yaa kale doonaya supervisor yaa doonaya bishan inuu noqdo supervisor is